السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللحام وإذن سلامين ميل والبدرن دافير كجوبتين سوء دول برتي يوتيوب كانوا رجع إن أشل ما تحدون إن نكح الله إن خيارته يسوي ديسي إن شهادوينك والله آدم لو رفتي آدم ما أركتي سو ما على دان هاي سو مرخد إنسو شيء هو شهادوينك أسقو نبقمنا I don't know what cause إن ما أركتي مرور بقى جعلنا هاي داخلك سو قلنا I don't know why shahaadooyinkaas dad badan waxaa arkay oo asxaabna ha i weydiiyey oo dhahay niyo aniga waa ablaan garaystay wax shahaado la dhahana aan haysto ma jirto maxaa ii xaal ah ama maxaa ii arrin ah sida hore idinku soo sheegay horta shahaadada Somaliland waa la ogol yahay dad waxaa jira ay Somalilander ah Somaliland ka imaado su'aal soo weydiiyay igana dhaheen shahaadooyinkeena ka waran bal shahaadooyinka Somaliland iyo ma aragtay police clearance formka iyo dhalashada Somaliland intaas waa la ogol yahay intaan ka ahayn baasaboorka Somaliland lama ogolo laakiin waxyaalo kala dhan oo Somaliland ka sabtan yihiin waa la ogol yahay hada marriage certificate ka Somaliland waa la ogol yahay waayo it has better recording yani wixii wax oo maaragtay secure ah waayo oo yani safaarada wasaaradda leeyihiin wasaaradda meel loola xiriiray ay leeyihiin Mareykanka oo la xiriiri kara safaaradahaas ee wasaaradahaas ay leeyihiin marka haddii oo maaragtay isleedahay marka guuleysto ayaan ma aragtay shahaado fix sameysanayaa taasaan ku tagayaa wallahi aniga waxaan dhihi karaa waa shul ishal gal mar horena waa dhahay dadkii ma aragtay la socday oo YouTube ka daawanayay ama fiidiyodeeda hore soo daawday way ogaan karaan wayna arki karaan marka waa shul ishal gal waayo shahaadadan shahaado ka horeysa ayaa jirto dad adiga ka horeeyay ayaa jirto oo shahaadooyinkooda record gareysan yihiin ha u malaynin waxay ku shaqeynayaan dadkan markay safaaradaha la yiraahdo kulli data gooni ah ay ku shaqeynayaan ilan waa safaaradaha just company camal waay markii si loo fiiriyo hal data haystaan magacaaga hadii la geliyo ama confirmation numberkaaga hadii la geliyo ayaga dhan way og yihiin qofka meesha ku attend gareeyay marka shahaadooyinkii hore ay arki karaan ay dhihi karaan Soomaali qof people oo ah qaatay interview maray shahaadooyinkooda wixii documentiga ku fiirinaya maxaa different ah similar ku ah marka hadii la ogaado inay jam fake tahay automatically waa lagu disqualify gareynaa meesha ku hareysa maxaa ka baxay marka meesha ku hartay waxaa ka baxay in qarashka meesha ku tagtay waa sheeg mar hore fiisaha oo $330 ah caafimaadka $200 iskan tagi kara ayaa ka baxay marka qasaarun ba ku jirta weliga ha qaadanin risk ah hubtid inaad ku guuldareysanaysid risk qaadaha hadii aad hubin waayo laakiin risk aad hubtid bari kamaal inaad ma aragtay aad ku guuleysan karin way ila adag tahay in la qaato inay sin qumneen dad badan aan garanaa 2022 winners ahaa ma wadanin shahaado fake ah shahaado original ay wateen shahaado waxay wateen isku jaamacadooyina wateen iskuul saro oo soo xaqiijisay wasaaradda Soomaaliya soo xaqiijisay wateen oo tii dawladda adanba ah tii hore ayaga waxay ku qaateen daladay ku qaateen ka soo qaad daladii uu qaatay wuxuu tagay wasaaradda waxbarashada uu tagay imtixaamaadka uu iska soo saxay uu soo bedeshay tii wuxuu ku soo bedeshay dawladda cusub ku soo bedeshay xilligiisa loogu soo dhigay haddana markuu tagay oo interview laga qaaday waraaqadiisa la koobi garay wax ana sameeyay inta la qabtaa AB la geliyay marka nasiib waa asoore ba wiilkaas dhihi karaa laakiin waxaaga inay ku kaliya gareysnaadaan ku wanaagsanaadaan adiga ay dan kugu jirtaa ee maaha dan ugu jirto safaarada qof la soo reebay lacagta ka baxday adiga waay ma aha hadii waxaaga la hubo oo wax sax yahay ma aragtiin oo lagu soo reebo ma shalaynaysid laakiin waxaaga hadii fake ahaayeen ka waran waxa laga yaabaa inaad dib iska dhahdid waraaniyo warqadda koodi isaxnaan lahayd in dhibka igu dhaca lagama yaabeen maybe waan tagi lahaa ayaa isdhihi kartaa adigoona tagi lahayn marka koowaad oo ku qorneen calafka Ilaahay kugu dareemo haduu laakiin calafka ku qoran yahay oo wax fake la tagtay sometimes oo calafka ku jiro waxa laga yaabaa inaad tagi kartid waaba ilaa calafka Ilaahay ku qoran biska xaga karsamo marka there's no way aad ma aragtay lagu soo reebo laakiin weliga risk ha qaadan oo aad hubtid bari kamaal ina ma aragtay shalayn doontid shalaytin maxaa la yiraahdaa ma horeysay way dambaysaa marka mar walba qofka degdego oo wax qalad ku degdego hadii ku xumaadaan uu shalaynaya qarskaas iga baxay waxaas iga baxay heer wuxuu tagayaa inuu diido oo nooco xitaa magaca maartay lottery ama DV lottery dhan magaca dhan inuu ka soo horjeesta ay tagaysaa waxa kale oo garanaya hadda ma ahna waa hore ahayd sida la ii sheegay qof aan garanayo ali weydiiyay qofkan waxa la dhahay
uu necab yahay waxaa programka ka sheekeysada iyo DV lottery iyo waxaas iyo lama tusi karo maxaa yeelay markaan dhahay waxaa lagu dhahay mar hore ku guuleystay markuu ku guuleystay wuxuu ku qortay DS260 inuu engineer yahay oo ku qortay wuu tagay safaaradda asxaab dad badan waa yaqaanaan kuwa dadka guuleystayaasha always united waaye waa group ay samaystaan meel gooni iskala hadlaan sidii u wada socdeen marka safaaradda Nairobi interview ku qabeen safaaradda tageen markay safaaradda tageen interview laga qaaday marka laga qaaday ka bacdi aniga waxaa la aaway warqadaada engineernimo la cadeynaysa wuxuu dhahay aniga engineernimo waxa kasoo bilaabo dhahay sida Soomaalida shaqada oo taqaaniin qofku wuxuu ka bilaabayaa fundinimo ka bilaabayaa ama kuulinimadii iyo marka fundinimada kasoo bilaabaya dadka caawinaya shamiintada wixii qosh jiray ama marka qas jiray mutafaaliga ama kala maaragtay ugu dhiibi jiray jaajuurka ama maxaa la yiraahdaa Soomaaliga inaa tirada iskaga badanay bulkeetiga oo u dhiibi jiray sidii lagu dhisi jiray ku barto u dhahay ka bacdi hada guriga wixii lagu dhisay dhan waa aqaana waayo Soomaaliga waxaa jiro dad oo ma aragtay engineer ah hada just now engineer ah guriyaal qurux badan dhisaan oo ma aragtay ma sha Allah ah laakiin shahaadan ka haysanin oo ka bilaabo shaqada xagga ka soo bilaaway ayaa jiro marka aniga saas ah u dhahay Soomaaliya iskool loogu dhigtay saasan ku bartay saasan ma aragtay heerkan soo gaaro ma aragtay engineer ku ahay waxaad ku jirtaa Allah cadeen u baahanahay sidaas ku hartay ama soo caday emailka ku soo dir ama hadii kale ma salaam sidii ku soo haray sidii oo dadkii la socdeenna way tageen asagna sidii lagu reebay marka programku uu nacayo qofka markay dib ka soo gaaro oo wili dib asaga khalad asaga sameeyay ka soo gaaro oo ka shalaynana wuu dhibaya shaqada waxa ku keen hadda adig qoomamo un just waxa adig ahayn inaad sheegatid oo isku waxbarashada wax ahayn sheegatid shahaado buugaan samaysana aad ku tashitid program wax kugu dhici karo waay marka always labada dhinac bina tirisada kugu fiicanta negative iyo positive ka laakiin always haday wax qaldan yihiin aniga waa discourage gareynaa in maaragtay lagu adkaysto waxaan encourage gareynayaa ama waxaan ku dhiirigelinayaa dadka wax saxan inay kala hortagaan marka intaasaan ku joojinaa insha Allah fake ha ku tashanin insha Allah dinay kareem assalaamu calaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh